marka ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa u fadhiyo gidina waxaa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida kii ugu horeeyay ku gaarka ah hadda ayaad waxaa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mardhow waxaanu maqli doonaa oo loo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ee ka koobanta Somaliland iyo Somaliland aradagay sida qaynuunku uu doonayo waxa in la doortay noqon kara jamciyada ragga abada cadadooda ثلثين ninka ay boodsiisa hadii markan ugu horeeyay la waayo aqlabiyada 3 meelood u dhig laba ah markan lagu aqlabiyada saaxiiqa Abdullah Usman janto test boqol iyo 7 weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa hadee inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin manta waa mahad ilaahi manta dadkii midowye manta waa maalin weyne manta madaxiin banaani manta waa maalin weyne manta madaxiin banaani manta manta lama marin karaayo manta waa maalin weyne manta madaxiin banaani manta dhaxaani muudiyo